markaana kusoo dhawaada Arsenal sanadkan way dhaarsan tahay. Arsenal jeebkay jeexi doonta sanadkan. hadda sida u jeediyeen waxay la soo saxiixatay Gabriel Jesus kaasoo ku sugan hadda Arsenal ku sugan wuxuuna saxiixi doonaa 5 sano saxiixi doonaa. sidoo kale isla maantayna soo bandhigaan rajeena. sidoo kale Arsenal waxay rabtaa sanadkan inay la soo saxiixato ciyaartooy adag oo hadda ka soo bixi karo ana Arsenal inay gaarsiiyaan meel kore sida Rafinha oo ognahay dagaalyahan caadihan dhaxda wax kasta qasay. Telemans oo Leicester City u ciyaaro waa ciyaartooy adag. sidoo kale waxay rabaan difaac oo Lisandro Ajax u ciyaaro oo dhaxda qadka dhaxda iyo sidoo kale geesna uu ka ciyaara. marka Arsenal ay soo adkaysan kartaa jeebkana ay jeexdo. marka arkayna waxa hadda ay dadku ku tiriyaan intaanu ciyaartooy ay rabaan Arsenal inay soo saxiixaan. hadda waxay la soo saxiixdeen Matt oo ah Bortieri oo Mareykan ah, Fiara oo sidoo kale ka ciyaara Portuguese ka ciyaaray oo qadka dhaxa iyo sidoo kale Man City weerarkeeda Gabriel Jesus. marka waxaa marin doonaan inay la soo saxiixi doonaan Rafinha inkastoo ay lacag badan ay ku xireen Leeds laakiin se waa u maleynaa inay lacagtaas dhiibi doonaan. haddii kale waxay la soo saxiixi doonaan wiilkan ay dhahaan Lisandro waa difaac adag. Arsenal difaac u baahan yihiin sidoo kale si xoojiyaan sababtoo ah bedel kale u baahan yihiin Gabriel iyo Ben White iyo dhawacman waa loo baahan yahay.